kulanti wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotay waa duhurnimo Arbacaha 16 bisha May. qodobada barnaamijka maanta aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah siyaasiga waddanka Malaysia ee Anwar Ibrahim oo xabsiga laga sii daayay Kuuriyada Waqooyi oo shaki ka muujisay iyadana kulanka bisha dambe dhexmari doona hogaamiyahooda iyo madaxweyne Trump. waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan in badan baan hadda shaqaynaynaa waxaan naga maqan wax yar oo taakulayna oo xagga dawladda ah dhulka matalan hadda sidan oo kale markaan u beerano waxaan u baahannahay cagacagaftii aan ku riqan lahayn ma haysano midda kale madaabiradoo kale ma haysano kontrabaan bay nagu tahay waa warbixin ku saabsan dumarka beeralayda ah ee magaalada Goday oo barnaamijka aad ku maqli doontaan. waxa kale oo aan idin haynaa nin Soomaaliya oo loo magacaabay mayor sharafeed ka magaalada Sheffield iyo wararkii ciyaaraha. duhur wanaagsan markii la dhageystayaal qodobadaas iyo qaar kale ayaad nusaaca soo socda ku maqli doontaan. barnaamijku isku soo dubariday Bashiir Maxamed Caato. waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. mahadsanid Faarax. Shiinaha ayaa Mareykanka iyo Kooriyada Waqooyi uga baaqay inay ka shaqeeyaan sidii ay meel dhexe isugu iman lahaayeen si uu jawi wanaagsan uga dhaco kulanka bish soo socota yeelanayaan madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un. Pyongyang ayaa sheegtay inay hakinayso wadahadalka la yeelan lahayd Washington haddii ay joojin weydo ka hadalka hubka dhigista nuclearka. wasiir ku-xigeenka koowaad ee arrimaha dibadda Kim Yi-wan ayaa sheegay inay Kooriyada Waqooyi doonayso inuu Mareykanka u joojiyo siyaasaddiisa afduubka ah oo shuruudaha ku hordhigaya arrimaha nuclearka. Kooriyada Waqooyi ayaa si cadho leh u cambaaraysay dhoolatuska militari ay sida wadajirka u sameynayaan Mareykanka iyo Kooriyada Koonfureed. baarlamaanka dalka Jabaan ayaa soo saaray sharci suuro gelinayo inay dumar badan ay isu soo taagaan doorashada. sharcigu wuxuu ururada siyaasadeed u farayaa inay musharaxiintooda ay ka simaan ragga iyo dumarka, balse sharcigu laguma sheegin wax ganaax amaba abaalmarin oo lagu mutaysanayo meelmarintiisa. 90% mudanayaasha baarlamaanka Jabaan ee lasoo doorto ayaa ah rag, taasoo Jabaan ka dhigaysa dalka ugu hooseeya ka qaybgalka dhinaca haweenka ee siyaasadda wadamada G7 laisku yidhaahdo. madaxda dalalka Turkiga iyo Israa'iil ayaa bilaabay inay erayo kulkulul isku weydaarsadaan Twitter-ka tan iyo markii ay Gaza rabshadaha ka bilowdeen. warar soo baxaya ayaa sheegaya in Israa'iil ay diyaarisay mudaharaadyo looga soo horjeedo danjiraha Israa'iil uu Turkiga soo eriyay iyo weliba sida loola dhaqmay. warbaahinta Turkiga ayaa waxay baahiyeen xilliga uu danjiraha Turkiga ka soo baxayay isagoo si aan munaasabayn loola dhaqmayo. Israa'iil ayaa iyaduna amar ku bixisay inuu qonsulka Turkiga uu joogay Israa'iil uu dalka ka baxo. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa midka kale ku eedeeyay inuu dhiig gacmaha uu kula jiro. siyaasiga mucaaradka isbedel doonka ee Malaysia Anwar Ibrahim ayaa xabsiga laga sii daayay. Mr. Mahathir oo ah ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Indonesia ayaa cafis u fidiyay siyaasigaasi caanka isagoo Mahathir uu sheegay 2 sano gudahoodna inuu kursiga u banaynayo Mr. Anwar Ibrahim. Mr. Anwar ayaa u mahadceliyay dhammaan ciddii ka qayb qaadatay siideyntiisa isagoo sheegay inay dadkaasi yihiin kuwa fahansan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. siyaasigan ayaa markii labaad la xiray 3 sano ka hor isaga oo tilmaamay in lagu oogay dacwad gacan ku rimis ah. ugu dambeyn, ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay taliya ka tirsan Al-Qaacida inay dileen. taliyahaasi oo u xilsaarnaa dagaalada ka dhaca Afghanistan iyo Pakistan. taliyaha oo lagu magacaabo Hazrat Abbas ayaa lagu sheegay inuu ahaa taliyaha Al-Qaacida. waxaa lagu beegsaday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Nangarhar. ciidamada Mareykanka waxay intaa ku dareen inuu ninkaasi mas'uul ka ahaa weeraro iyo afduub tiro badan oo ka dhacay xuduudda labada dal waa Afghanistan iyo Pakistan. warkii waa naga inta Faarax. aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. markana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilaabay sidii warkaba aad ku maqlayseen, siyaasiga waddanka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa waxa uu ku dhawaaqay waa cusub oo u bariyay waddankiisa kadib markii laga sii daayay xabsiga. markii labaad ayay ahayd ee xabsi la dhigo muddo 3 sannadood laga joogo. wax uu ku sheegay eedeymo laga saa'id caleeyay oo ah markaasi in uu sameeyey dembiyo anshax xumo ah. siyaasigaas 70 jirka ah ayaa cafis ka helay boqorka kadib markii toddobaadkii hore doorashadii la qabtay uu ku guulaystay ninka ay siyaasadda saaxiibka ku ahaayeen ee Mahathir Maxamed. wararka ay BBC-da arrintaas ka qortay waxaa warbixintan looga diyaariyey Cabdinuur Sheekh Maxamed. dalka Malaysia oo toddobaad ay ka dhacayeen arrimo aan caadi ahayn ayaa tani waxa ay noqonaysaa tii aadka loo sugayey ee waaga cusub ee u bariyey waddanka Malaysia. Anwar Ibrahim oo ah ninkii 20 sano ka hor markii si lama filaan ah u waayay maqaamkiisii siyaasadda ay dhalisay xarakada isbedel doonka ah ee iminka keentay codbixintii in guusha ay ku raacdo. Anwar oo 2 jeer loo xiray mucaaradnimo iminka waa xor.
ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay mahathir moxamed oo ahaa ninkii soo barbaariyey dhanka siyaasadda anwar oo haddana shaqadii ka eriyey oo xabsi u diray 20 sano ka hor ayaa iminkana u dalbay cafis anwar uu saaka kaga soo baxay jeelka. anwar ibraahim oo saxaafadda la hadlayey ayaa la weydiiyey sida uula shaqayn doono mahathir marka la eego wixii horey u kala dhex maray. anwar waxa uu yidhi mahathir waxaannu ka midaysannahay waxyaabaha aan mudnaanta siinno ee ah dalka iyo danta maleesiya. danta hadda aan leeyahay waa barwaaqada qaranka. waan cafiyey isaga, wuxuuna muujiyey kartidiisa, wuu soo dhibtooday, waxaana uu kala kulmay dhaliil warbaahinta. wuxuu halgan u soo galay si hagar la'aan ah oo juhdi ku jiro, wuxuuna taageeray hadda ujeeddada isbeddelka. wuxuu kaloo gacan ka geystay sii dayntayda. sii daynta anwar waxa ay ka dhigan tahay dib u heshiisiin aan lagu fakari karin in ay dhex marto labada nin oo soo afjartay xisbigii waddanka soo xukumayay 60 sano iyo ka badan in doorashadii dhaweyd lagaga guulaystay. mahathir iminka waa 29 jir, waxa uu ballan ku qaaday kursiga ra'iisul wasaaraha inuu u bannayn doono anwar 2 sano gudahood. waxaase dadka maleesiya ka yaabisay sida labada nin oo awoodda leh oo waana ay isugu jirtay iminka ay u wada shaqaynayaan iyo sida quman ee ay u qaabayn doonaan isbeddelka weyn ee siyaasadeed ee dalka maleesiya. cabdinuur sheekh maxamed aad ayuu u mahadsan yahay. magaalada sheffield ee waddanka ingiriiska ayaa waxaa loo magacaabay inuu meeyar sharafeed ka noqdo markii ugu horreysay nin soomaali ah. maajid ayaa xafladda caleemasaarkiisa ay iminka toos uga socotaa halkaas. xilkan meeyar sharafeedka ayaa waxa uu yahay mid xushmadeed, hase yeeshee waxa uu muhiim u yahay jaaliyadda soomaalida. wariyaha b b c da cabdixaafid cawil ismaaciil oo iminka halkaa ku sugan ayaa waxa aan ka waraystay waxa halkaa ka dhacaya inuu iga warramo. faarax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan ku suganahay councilka magaalada Sheffield. maantana waxaa lagu caleema saarayaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ee asal ahaan kasoo jeeda dadka Soomaaliyeed. maajid ayaa la yidhaahdaa. waxa uu ka yahay xubin xisbiga Greenka oo uu ahaa xildhibaan ilaa iyo sanadkii 2016. maantana waxaa loo caleema saarayaa inuu noqdo duqa magaalada Sheffield. waa gartay, marka waa arrin aad muhiim u ah Soomaalida Sheffield ku nool iyo magaalooyinka kale ee u dhow. maxay uga dhigan tahay arrintan? Soomaalida Sheffield ku nool oo ah marka la eego jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Britain, kuwa ugu tirada badan Sheffield oo ah magaalooyinkii ugu horeysay ee ay Soomaalidu timaado dalka Britain. in maanta duqa magaalada uu noqdo wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed waa mid ay aad ugu faraxsan yihiin. sidoo kalena waxaa jirta iyaduna inan la yidhaahdo Kaltuun oo kasoo baxday isla xisbigaasi Greenka oo iyaduna xildhibaan noqotay. taas waxa ay ka muuqataa sida maanta ay jaaliyadda Soomaalidu uga soo qayb gashay xafladan, hadday noqoto dhalinyaradii, hadday noqoto odayaashii iyo hadday noqoto haweenkii oo iminka uun xafladda iyadoo la gelayo dadka martida badankooda ay iminka gudaha ku jiraan ay dad Soomaaliyeed oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada ay joogaan. marka laga hadlayo Lord Mayor ama Mayor Sharafeed muxuu yahayna noo sharax? waxa uu noqonayaa in uu ka qayb noqdo go'aamada ugu waaweyn ee ka soo baxaya magaalada Sheffield ee ay magaalada u gudbinayso dawladda guud ahaan. waxa uu la shaqayn doonaa dhalinyarada. waxyaabaha uu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto waxbarashada iyo dhammaan adeegyada bulshada ee dadka jaaliyadda ku nool Sheffield guud ahaan. laakiin dabcan jaaliyadda Soomaalida uu si gaar ah ula sii shaqayn doono. cabdixaafid ayuu u mahadsan yahay. idaacadaheenna dambe ayaanad ku maqli doontaan warbixinno kale oo dheeraada oo halka uu ka soo diri doono. qodobkaasna dadka ra'yigooda facebookga kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah maxamed siciid qoobey oo degmada xarfo ka soo qoray. waxa uu leeyahay waan soo dhoweynayaa ninka Soomaaliga ah ee loo magacaabay meeyar sharafeedka Sheffield, waxaanan leeyahay ayuu yidhi Allah kugu asturo shaqada cusub ee lagu dhiibay. laakiin fikradtaa ka duwan waxaa qaba Cabdulcasiis Cabdullaahi Daahir oo sheegay inuu ka soo qoray beled xaawo. waxa uu leeyahay ninka Soomaaliga ee loo magacaabay meeyar sharafeedka magaalada waa magacaabis maqaarsaar ah oo dan ay ka dambayso. وهجاك دقيستيال ولي هلك أدنى جلسوا عطان والله أنت في صومالي BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
warbixintii ku saabsanayd dumarka iyo beeraha goday ayaa goordhow aad maqli doontaan dhegaystayaal ha yeeshee aan ku hormarno dhinaca iyo kuuriyada waqooyi oo shaki ka muujinaysa shirka bisha dambe lagu wado inuu dhex maro hogaamiyahooda iyo madaxweyne Donald Trump. Pyongyang waxa ay ku hanjabtay in wadahadallada ay joojin doonto haddii Washington ay si iskeeda u sii wado in ay cadaadis ku sii saarto inay joojiso hubka nukliyeerka. Shiinaha ayaa labada dhinacba waxa uu ka codsaday in ay muujiyaan niyad wanaag oo ay isugu yimaadaan meel dhexe si loo abuuro jawi uu ku qabsoomi karo kulanka labada hogaamiye. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo haya Xasan Cali Geelle. hadalka Shiinaha ayaa yimid kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay hakinayso wadahadaladii heerka sare ahaa ee ay kula jirtay Kuuriyada Koonfureed, sababo ay ku sheegtay inay rumaysan tahay in dowlatusyada militari ee Koonfurta iyo Maraykanka ay ka wadaan xadka ay yihiin kuwa dagaal lagu diyaar garoobayo. warbaahinta ay dowladda maamusho oo warkaasi baahisay ayaa sidoo kale uga digtay Maraykanka in shirkii la qorsheynayay inuu dhex maro hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sidoo kale khatar ku jiro. labada Kuuriya ayaa la filayay in maanta ay kulan ku yeeshaan soodinta kala qaybisa labadani dal si ay uga wada xaajoodaan sidii dib loogu bilaabi lahaa isu keenidda qoysaska ku kala lumay dagaalkii dhex maray labadaasi dal. kulankaasi oo ay soo jeedisay xukuumadda Pyongyang, dowlatuska ay ka cabanayso Kuuriyada Waqooyi ee ay wada jirka u wadaan waddamada Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, ayaa ah mid loogu magacdaray Mark Thunder, kaasi oo bilowday Jimcihii la soo dhaafay. waxaana ka qayb qaadanaya boqolaal diyaaradaha dagaalka ah oo ay ku jiraan kuwa duqaymaha culus geysta ee B-52 iyo noocyo kale. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka carootay dowlatusyada ay samaynayaan labadaasi waddan, balse hogaamiye Kim Jong-un ayaa dhowaan u sheegay mas'uuliyiinta Seoul inuu fahansan yahay in aan la joojin doonin. Heather Nauert oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in dalkeeda aanu hayn xog tilmaamaysa in kulanka Trump iyo Kim Jong-un uu qarka u saaran yahay inuu burburo. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Kim Gen-gwan ayaa sheegay in aanan lagu qasbi karin inay dhigaan hubkooda nukleerka. waxa uu su'aal geliyey hadal uu sheegay la taliyaha Trump ee arrimaha ammaanka John Bolton, kaasi oo ahaa in hanaankii loo maray hubka dhigidda Liibiya loo adeegsan doono Kuuriyada Waqooyi iyo in dalkaasi barwaaqo loo horseedi doono marka uu burburiyo hubkiisa nukleerka. wasiirka ayaa sheegay in hadalka Bolton uu yahay mid khayaano wata oo ay og yihiin in Liibiya iyo Ciraaqba la burburiyey kadib markii la ogaaday in aynay haysan hubka wax gumaada. xiisaddan cusub ayaa muujinaysa inuu kala duwan yahay fahanka ay Washington iyo Pyongyang ka qabaan burburinta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. geelaad ayuu u mahadsan yahay. tabcashada beeraha ayaa waxa ay ka noqotay mihnad cusub oo ku soo badanaysa Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya, kuwaasoo hore u ahaan jiray kuwo u badan xoolo dhaqato. meelaha sida weyn looga dareemayo tabcashada beeraha waxaa ka mid ah magaalada Goday oo dadku ay iminka si weyn uga faa'iidaysanayaan biyaha webiga Shabeelle ee halkaa mara. haddaba dhowaan waxaa safar shaqo ku tegay magaalada Goday wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam, waxaana uu kuurgalay sida dadka magaaladaas ay beeraha uga faa'iidaystaan. kadibna warbixintan ayuu nooga soo diray. kuwani waa dumar beeraley waxayna la daalaadhacayaan guritaanka beertan, gaar ahaan khudaarta oo bislaatay, waxaana ii muuqday 10 hektar oo khudaar kala duwana. dhanka bidixna waxaa igaga toosan beer galleeya oo gabdhahani leeyihiin waraab xilli dhow ahna uu ka muuqdo. caashe maxamed nuur caashe kiin waxay ka mid tahay iskaashatada beeraleyda ee dumarka u badan. dumarku aad bay u xoogsadaan, dhulkan iska aaminay, waanu ka shaqaynaa maalin iyo habeenkii waan seexanaa ama 2 ama 3 dad shaqaale oo shaqaysto oo iskaashata oo muruqmaal oo nala xoogsadana way jiraan oo aan iska taageersano dhinaca xoogga. annaguna waxaanu xoog iyo xoolaha laba beerahana maan kaga shaqaynaa. waxa dambeyn helayna beeraha unaan ku badino maan ula taagana wixii ilaahay horena siiyana waxaanu kaga shaqaysanay beeraha. jiilaal ma lihin, xagaa ma lihin, dayr ma lihin, webigaanu ka waraabina. geedo waaweyn oo geed midhooda oo liintu ku badan tahayna way ii muuqdaane. liinta keliya ma waxaa ku yaala moos, waxaa ku yaala babay, waxaa ku yaala cambe. waan ku soo tiri karaa, hore baynu soconaynaa, waynu tegaynaa. ani waxaa la dhahaa magacayga Nimco Aakib Cabdi.
dumarka goday goormay bilaabeen hawsha tabcashada beeraha in badan baan hadda shaqaynaynaa haddii ilaahay nagu guuleeyana inaan sii wadno mooyeen inaan dhinno ma rabno waxaa naga maqan wax yar oo taakulayna oo xagga dawladda ah dhulka matalan hadda sidan oo kale markaan u beeranno waxaan u baahannahay cagacagaftii aan ku riqan lahayn ma haysanno midda kale madhaabirado kale ma haysanno kontrabaan bay nagu tahay suntoo kale madhaabiradu waa maxay waa dhulka beerta lagu shubo weeyaan nacfiga beerta lagu shubo weeyaan yuurida weeyaan waxaan haysanin oo kaleeta suntii beerta basasha lagu barbaarinayay webiga Shabeelle oo beerahan lagu waraabiyo ayaa noo jira ku dhawaad 200 oo mitir dhinaca waqooyina naga xiga waxaana noo dhaxeeya annaga iyo webiga geeda waaweyn oo geed midhooda oo iskaashatadani ay leedahay 25 daqiiqo ayaan u soo kala socday magaalada Goday iyo beertan waxaan soo galay jawi dadkiisu aad mashquul u yahay Maxamed Cabdulaahi Cige waa ninka kaliya ee iskaashatadan beeraleyda ee dumarku u badan yihiin ka dhex muuqda dawladdu inay samayso bangi gaar oo ah ee beeraha waan wax kala qabanin oo beeraha maalgeliya wixii maxaan ku raraa beeraha ka soo go'ana la wareega oo isagu suuq u sameeya abuurka loo baahan yahay nooc kasto ay tahay isagu keena warshadaha yaryar haddii loo baahdo ee beeraha soo iibiya qalabka beeruhu u baahan yihiin keena oo isagu wax kale aan ka shaqaynin oo sidiisuba suuqgeynta isagu qaabilsan وهجاجة عدكاسنا وحو قدام بيجي وربحنتي وريه إن عبد الناصر حكم ونوجس صدري مجال جدي قضب كاسنا ذاتك الرأي جود فيسبوك كجسوا ديبتي وحكم ده عبد النور أحمد أبورتن لك ساقري آله هو سود وين إياه هوين كمجال جدي كل دقائق تبع شذا بيرا وحن رجينا يجري أرنت سنة وحكي بدل دون طبق علىها الدولة ديجانك رأي أنكاس كفوجين waxaa isna qaban liibaan maxamed shirwac oo muqdisho ka soo qoray oo leh dumarka reer guday ee u jihaystay beeraha waan soo dhaweynayaa waana tallaabo wanaagsan oo ku dayasho mudan waxaana tusaale ay u noqon doonaan buu yiri guud ahaan dumarka Soomaaliyeed ee kala jooga meelaha kala duwan wararka ciyaaraha haddii aanu u galno dhegaystayaal caawa waxaa jirta ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka Europa League waxaana fooda isdari doona kooxaha Marseille iyo Atletico Madrid saacadda Afrikada Bari markay tahay 9:45 daqiiqo waxaana ciyaartu ay ka dhici doontaa garoonka la yiraahdo Groupama ee magaalada Lyon tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa ciyaarta waxa uu ka daawan doonaa tarabuunka kadib markii ganax la dul dhigay ciyaartii semifinalka ahayd ee ay ka soo badiyeen kooxda Arsenal dhinaca kalena Sam Allardyce ayaa waxa uu ka tagay tababarnimada kooxda Everton kadib muddo 6 bilood ah oo kooxda uu la joogay 63 jirkaas ayaa kooxda waxa uu la saxiixday bishii November qandaraas dhammaan lahaa bisha June 2019 kadib markii uu naadigu eriyay ninkii isaga ka horeeyay ee Ronald Koeman Everton markii uu Allardyce qabanayay waxa horyaalka ay kaga jirtay kaalinta 13aad haatan oo horyaalka uu dhamaadayna waxa ay gashay kaalinta 8aad tababaraha xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska Gareth Southgate ayaa isna waxa lagu wadaa inuu maanta magacaabo 23 ciyaartooy ee Ingiriiska uga qayb galaya koobka kubadda cagta adduunka ee bisha dambe lagu qaban doono wadanka Ruushka waxaana ilaa iyo hadda la og yahay in liiska aysan ku jirin goolhayihii koobaad ee xulka qaranka Joe Hart iyo Jack Wilshere oo dhexda ka ciyaara wahagaag wararkii ciyaarahana inta aan kaga gudubno sheeko xiiso leh oo aan idin qarinayna waa ay noo soo socotaa وهاجا dhageystayaal madaxweynaha Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov ayaa waxa uu ku guuleystay tartan caalami ah oo gawaarida ah kuwa gawaarida lagu tartamo waxaana cajiib ahayd madaxweynuhu tartankaas inuusanba u soo diyaar garoobin in uu ka qayb galo sheekadaas waxaa soo akhriyay oo iminkan stuudiyaha ila fadhiya saaxiibkay Cabdinaasir Saxan Saxo Cabdinaasir sidee ku dhacday madaxweynaha in tartan uusan ku soo talagelin uu ku guuleysto faraha ma santahay tartan marka la sheego oo hadana madaxweyne la sheego waxa dadka ku soo dhacaya sanaatiiqda codbixinta iyo doorashooyinka hase yeeshee kani aad ayuu uga duwan yahay madaxweynaha Turkmenistan Gurbanguly ayaa tagay meel aan iraahday saxaraha Karakum oo ku yaala dalkaasi oo ka dhacay tartan caalami ah oo lagu magacaabo Hamul Azhar Rally halkaas oo uu ka dhacay tartan caalami ah oo baabuurta wasiirinu arku u tagay wasiirka u yeeray si uu kormeero in tartankii loogu diyaar garoobay sidii loo rabay hase yeeshee markii ay dadkii garsoorayaashii arkeen gaarigiisa oo BMW ah in uu u qalma kana soo baxay shuruudihii tartanka lagu galayay isagana uu weydiisto yiri ma ka qayb gali karaa maanta gaarigaaga uu qalmaa kadibna uu ka qayb galay waxaana la yaab leh in xitaa kubii xirfadlayaasha baabuurta wadayaasha baabuurta ee tartanka uu xitaa ka dheereeyay oo ku guuleystay tartankaasina waxaase
lagu sheegaa madaxweynahan inuu xitaa mihnado kale leeyahay sida wadista bashkuleetiga iyo xitaa muusiga iyo fardafuulka waxaasoo dhan uu aad ugu dheereeyo marka madaxweyne fardafuula waay ninkan laakiin haddana baawur fuul buu ku tursada laakiin si kale haddii loo fiiriyo ma la oran karaa maadaama madaxweynihii uu ka badiyey de nimankii darawallada ahaa ee faraha looga gubtay waa u fuutiyeenoo ayagaa ka xishooda madaxweynihii inay ka badiyaan waa iska suuragal laakiin waxaa la sheegayaa in xitaa sanadka dambe loo diiwaangeliyey in uu ka soo qayb galo tartankani mar kastana lagu casuumay lana siiyey bilad iyo koob la siiyey taas oo gurigiisa ku xardhan doono wiilkiisana waxaa la yidhi wuxuu u ahaa dalmar ninka u haya maabka u haya oo haddana ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda adigoo cabdinaasir oo haddii madaxweynaha la tartami lahayd maxaa samayn lahayd waa u fuutin lahaa waa hagaag dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c wararkaas iyo kuwo kalena waxaad toos uga daalacan kartaan barta internetka ee b b c somali.com iyo facebookga markana waxaa idinku soo maqan waa dadkii dadkooda baafinayey oo aad dhegaysan doontaan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha b b c da ee magaalada nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah caasha siciid xasan iyo cabdiqaadir yuusuf cali cabdiqaadir mahadsanid caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay jamiilo cabdikariim xaashi oo joogta wisil waxa ay baafinaysaa cabdiraxmaan cabdikariim xaashi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada kambala sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiraxmaan cabdikariim xaashi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo jamiilo cabdikariim xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee leedahay wisil maymuun cali salaad oo joogto wisil waxay baafinaysaa nuur cali salaad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen 2001 haddaba haddii uuna maqlayo nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maymuun cali salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil cabdifataax mahad cismaan oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa maxamed mahad cismaan waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada london sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed mahad cismaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdifataax mahad cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil axado cabdulle xaashi oo joogto wisil waxay baafinaysaa hanad maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika 1997 haddaba haddii uuna maqlaya hanad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axado cabdulle xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil ridwaan cali barre oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa hidaaye maxamed cumar waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada nairobi sanadii 2001 haddaba haddii ayna maqlayso hidaaye maxamed cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ridwaan cali barre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil mursal nuur salaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa xaawo nuur salaad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya 2007 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mursal nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil daawud xuseen cawaale oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa khaliif xuseen cawaale waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Johannesburg sanadii 2000 haddaba haddii uuna maqlayo khaliif xuseen cawaale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo daawud xuseen cawaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil shariif yuusuf cumar oo joogo isla wisil waxa uu baafinayaa mudan yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Faransiiska 2001 haddaba haddii ayna maqlayso mudan yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shariif yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil shaakir maxamed faarax oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa khamar maxamed faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso khamar maxamed faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shaakir maxamed faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil daahir salaad bargadle oo jooga wisil waxa uu baafinayaa mawlid salaad bargadle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2007 haddaba haddii uuna maqlayo mawlid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo daahir salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil maxamed jaamac sabriye oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa nayruus axmed nuur waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada goday sanadii 2002 haddaba haddii ayna maqlayso nayruus axmed nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed jaamac sabriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil raaga maxamed saciid oo jooga
wisil waxa uu baafinayaa faysal maxamed siciid waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika 2001 haddaba haddii uuna maqlayo faysal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo raagi maxamed siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. nageeye nuur abshir oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa maymuun nuur abshir waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada nairobi sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso maymuun nuur abshir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nageeye nuur abshir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. saalax nageeye cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa xamso cabdilfataax nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani kenya 2007 haddaba haddii uuna maqlayo xamso cabdilfataax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saalax nageeye cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. farxiye xaashi maxamed oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa xamdi xaashi maxamed waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi xaashi maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo farxiye xaashi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. maxamed cumar jimcaale oo jooga wisil waxa uu baafinayaa cabdimanaan cumar jimcaale waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suudaan 2000 haddaba haddii uuna maqlayo cabdimanaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cumar jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. xaawo xasan faarax oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa nageeye xasan faarax waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo nageeye xasan faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo xasan faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. ruqyo cabdi warsame oo joogta wisil waxay baafinaysaa duniya cabdi warsame waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yeman 1997 haddaba haddii ayna maqlayso duniya amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ruqyo cabdi warsame iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. cabdiraxmaan salaad abshir oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa faadimo salaad abshir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada cape town ee dalka koonfur afrika sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo salaad abshir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiraxmaan salaad abshir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. raage xirsi afrax oo jooga wisil waxa uu baafinayaa maymuun xirsi afrax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska 2004 haddaba haddii ayna maqlayso maymuun xirsi afrax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo raage xirsi afrax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. hanad cabdi salaad oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa falastiin cabdi salaad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada diridhabo sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso falastiin cabdi salaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hanad cabdi salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. naxwo aadan barqadle oo joogta wisil waxay baafinaysaa liibaan aadan barqadle waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yeman 2012 haddaba haddii uuna maqlayo liibaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo naxwo aadan barqadle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. mahdi axmed nuur oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa baarliin axmed nuur waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada sanca sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso baarliin axmed nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mahdi axmed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. xaawo yuusuf xalane oo joogto wisil waxay baafinaysaa raage yuusuf xalane waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka qatar 1998 haddaba haddii uuna maqlayo raage amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo yuusuf xalane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. cabdiaar cabdi jimcaale oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa bashiir cabdiaar cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir cabdiaar cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiaar cabdi jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. maxamed axmed salaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa safiya cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada nairobi 2011 haddaba haddii ayna maqlayso safiya amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed axmed salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. sadiiq nuur siyaad oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa yaasmiin nuur siyaad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada jigjiga sanadii 1997 haddaba haddii ayna maqlayso yaasmiin nuur siyaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sadiiq nuur siyaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. xasan cali kaahiye oo jooga wisil waxa uu baafinayaa samiiro cali kaahiye waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ciraaq 2000 haddaba haddii ayna maqlayso samiiro amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xasan cali kaahiye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo
xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. maryan salaad ciise oo joogta wisil waxa ay baafinaysaa zakariya salaad ciise waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya sanadii 2003 haddaba haddii uu maqlayo zakariya salaad ciise ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maryan salaad ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay maxamed cabdi aar oo jooga wisil waxa uu baafinayaa bashiir cabdi aar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2002 haddaba haddii uu maqlayo bashiir ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdi aar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. baafintani maanta waa naga intaas. caashe iyo cabdulqaadir aad ayay u mahadsan yihiin. war goordhow soo dhacayna waxa uu sheegayaa in tababarihii kooxda West Ham David Moyes uu isna shaqadii ka tegey. idaacaddeenii duhurnimo intaa ayay ku dhan tahay. bashiir maxamed caato ayaa soo saaray, anigoo faarax lamaanaana waa idinla socodsiinayay. mubaarak cabdalla ayaa noo farsameeyey. dib waxaanu kulmi doonaa 5 galabnimo. inta ka horeysana wararkeena waxaad kala socon kartaan Facebook iyo bbcsomali.com.